Baabuurtii loogu talagalay ciidanka dowladda gaar ahaan askarta militariga Soomaaliya ayaa waxay isku beddeleen gabdho tiktokara inay soo kaxaystaan in ay fuyuus ay ku duubaan oo magaalada Muqdisho dhexbartankeeda aad arkaysid in la iskugu faanayo in caawa ama maanta ay tahay mid ay ku soo gelayaan muuqaal. Haddaba ceeb ka weyn ma jirto gawaaridii loogu talagalay askarta in ay tiktokara gabdha ah ay fuyuus ay ku soo duubaan ama fuyuuska halkaasi uu ka galay in ay iskugu faanayaan. Tani ayaa waxay u tahay ceeb iyo fadeexad inta badan soo gaarayso dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Haddaba daawade warbixintaas ayaan diiradda ku saari doonaa sidee u aragtaa adiga muuqaalka daawanaysid in gabdho tiktokara oo fuyuus ay ka raadiyaan in baabuurta ciidanka qalabka siday ay la iskugu faanayo ama askarta qaarkood la dhahayo kaala caawan ku soo galna muuqaal. Sidaa aragtidii siday kula tahay qaybta hoose ee kommentiga fikirkaaga inagu dhaaf. Tani waxay ka turjumaysaa in dowladda Soomaaliya ay fadeexad weyn ay ka soo gaarayso dhinaca ciidanka maadaama baabuurtooda iyo sidoo kale la isticmaalayo agabkooda. Gabdhaha ayaa waxay iskugu faanayaan in habeenba baabuur hor leh la soo bixiyo Muqdisho magaalada caasimadda dhexbartankeeda la keeno fuyuus lagu duubto. Haddaba inta badan waxaa ognahay in gawaaridaas loogu talagalay ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale ciidamada militariga Soomaaliya. Haddaba tani ayaa waxay hordhac u tahay in waxyaalo kale ama baabuur kale oo hor leh in ay soo bandhigi doonaan gabdhahan. Sababtoo ah haddaana wax laga qabanin ama dowladda aysan la xisaabtamin askarta sidaan u dhaqmayso. Xitaa haddii ay kuwan ay gabdhaha ay wataan ay askar ahayn oo ay yihiin asxaab, waxaan filaynaa inay u soo dhiibeen saraakiil iyo sidoo kale inta badan dadka xukumo ciidanka. Haddaba inta badan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maalmahan ugu dambeysay waxaa ka dhacayay sida aan wada ogeyn in gabdhaha tiktokarada ay iskugu faanayeen in ay magaalada Muqdisho dhexbartankeeda qori soo qaataan ay ku laafiyoonayaan. Haddaba fuyuus inuu ka galay ama in ay muuqaalada ay ku soo bandhigtaan bartooda tiktoka ayaa inta badan waxa ay ka dhalatay hadal hayn fara badan. Haddaba inta badan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay tahay mid amnigeeda uu soo hagaagayo. Walow haddiisan wax laga qabanin gabdhahan ay noqon doonto mid ciidamada iyo sidoo kale istaafyada ay u soo dhiibayaan baabuurta ciidanka loogu talagalay in ay waxyaalo kale ay kala kulmi karaan. Haddaba fariintan aan gaarsiino laamaha amniga iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya si wax looga qabto gabdhahan fuyuuska tiktoka kaliya askarta u soo kaxaystaan muuqaal ay ugu duubayaan.